kuna wacan daawada waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta sugan oo aan ku eegi doono dowladda Mareykanka oo 20 sano kadib xaqiijisay in dantii ay ka lahayd Afghanistan ay ka gaartay sidaa darteed ay ciidamadeedu ka baxayaan. Madaxweynaha Mareykanka Joseph Biden oo ka hadlayna waxa uu sheegay in Afghanistan aysan u gelin in ay dowlad u dhisaan balse mustaqbalkoodu uu iyaga ku xiran yahay. Sidoo kale Taliban ayaa la wareegtay deegaano badan kadib ka bixitaankii ciidamada shisheeye ee wadanka Afghanistan. Madaxweynaha Mareykanka Joseph Biden oo telefishinka dadweynaha Mareykanka kala hadlay ayaa difaacay go'aankiisa uu ciidamada Mareykanka uga baxayo dalka Afghanistan 20 sano kadib, isaga oo sheegay in howlgallada Mareykanka ay dhammaan doonaan 31 bisha Agoosto ee sanadkan. Biden ayaa sidoo kale difaacay sida xawliga ah ee u socdo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka, isaga oo sheegay in ciidamada ay badbaadiyeen nafaf badan. Hadalka madaxweyne Biden ayaa imaanaya iyadoo kooxda mintidka ee Taliban ay sii wadaan in ay gacanta ku dhigaan qaybo badan oo dalkaasi ka mid ah. Ciidamada Mareykanka ayaa Afghanistan ka waday dagaal aan guul ku soo dhamaanin ku dhawaad 20 sanadood kadib weerarkii 11 bishii September ee sanadkii 2001 ee Mareykanka loo geystay. Horaantii sanadkan ayaa madaxweyne Biden waxa uu 11 September ee sanadkan 2021 uu qorsheeyay in ciidamada Mareykanka ay ka soo baxaan Afghanistan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa heshiis kula galay ururka mayalka adag ee Taliban ee reer Afghanistan in ciidamada Mareykanka uu dalkaasi ka saaro wixii loo gaaro bisha May ee sanadkan 2021, balse waxaa muddadaasi dib u dhigay Mr. Biden kadib markii uu xafiiska la wareegay bishii January. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in ka bixitaanka xoogagga Mareykanka ee Afghanistan uu yahay mid qorsheysan, isla markaasina howlgalka milatarigoodu ay soo afjarayaan 13 Agoosto. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay in Mareykanku aanu cidlayn doonin Afghanistan, isagoo intaasi ku daray in uu gacan ka geysan doono dadaalada loogu jiro in la gaaro heshiis nabadeed. Waxaan doonayaa in aan sii joogtayno joogitaanka diblomaasiyadeed ee Afghanistan. Waxaan si dhow ula shaqaynaynaa saaxiibadeena caalamiga ah si aan u sii wadno sugidda amniga ee garoonka caalamiga ah, inaga oo xoojin doona diblomaasiyadda si aan u raadino nabad iyo heshiis nabadeed oo soo afjari doona rabshadaha micno la'aanta ah, ayaa uu yiri madaxweyne Biden oo ka hadlayay arrintaani. Madaxweynaha ayaa sheegay in Mareykanka uu ku guuleystay danihii militari ee ciidamadiisa ay halkaasi u galeen kadib weerarkii sanadkii 2001 oo aysan halkaa iska sii joogi doonin. Sida aan sheegay bishii Abriil, Mareykanku waxa uu ka gaaray dantii uu ka lahaa Afghanistan si aan u helno argagixisadiina soo weerartay 911 oo cadaaladda u horkeeno Osama bin Laden iyo in aan yarayno khatarta argagixisada si Afghanistan aysan u noqon saldhig laga soo weeraro Mareykanka, ayaa ka mid ahayd hadallada khudbaddii madaxweynaha Mareykanka. Waan ku guuleysanay dhammaan ujeedooyinkii aan Afghanistan ka lahaynay, waana sababta aan halkaa u tagnay. Afghanistan uma aanan tegin in aan dowlad u dhisno, waana xuquuq iyo mas'uuliyad saaran dadka reer Afghanistan oo kaliya in ay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda iyo sidii ay u maamulan lahaayeen dalkooda, ayaa uu yiri madaxweynaha Mareykanka oo ka hadlay arrintaani. Waxa uu sidoo kale ku gacan sayray wararka sheegaya in Taliban ay la wareegtay dhul ballaaran, isaga oo sheegay in xuduudda Taliban ay qiyaastii tahay 75,000 oo askari oo kaliya oo aanay u dhigmin 300,000 oo ciidamada Afghanistan ah. Qorshaha dowladda Mareykanka u degsan ayaana ah in 650 askari ama 1,000 askari lagu reebo Afghanistan si ay u ilaaliyaan diblomaasiyiinta Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka iyo garoonka caalamiga ah ee Hamid Karzai International Airport iyo hay-adaha kale ee dowladda ee muhiimka ah. Codbixinadii ugu dambeeyay waxay muujiyeen taageerada ballaaran ee Mareykanka ee ka bixitaanka Afghanistan, iyada oo codbixiyaasha jamhuuriga ay aad uga walaacsan yihiin go'aankaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joseph Biden waxa uu kale hoosta ka xariiqay in dadaal lagu bixinayo sidii turjubaanada iyo dadka kale ee reer Afghanistan ee la soo shaqeeyay dowladda Mareykanka looga saari lahaa wadanka Afghanistan si aysan Taliban u dhibaataynin. Waxa uu sheegay in 2,500 oo fiisooyin muhaajiriin qaaska ah la siiyay si loogu ogolaado in ay yimaadaan Mareykanka, laakiin kala bar baa dalka Mareykanka gaartay.
dhanka kale kooxda Taliban ayaa qabsatay marinada waaweyn ee xadka ay la wadaagaan Iran iyo Turkmenistan kadib howlgallo ballaaran oo ay ka wadeen waqooyiga Afghanistan sida ay saraakiishu sheegeen. Taliban waxa ay ku faantay in ay la wareegeen laba magaalo oo muhiim ah oo kala ah Islamqala oo u dhow xadka Iran iyo Afghanistan iyo Turgundi oo ku taala xuduudda Afghanistan iyo Turkmenistan. Saraakiisha Afghanistan waxay qireen in lagala wareegay Islamqala iyo Turgundi oo labaduba ku yaala gobolka Herat ee wadanka Afghanistan. Ciidamada Afghanistan ayaana isku dayay in ay dib u qabsadaan labada magaalo ee xuduudda ku yaala sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan. Afhayeenka Taliban Zabihullah Mujahid ayaa sheegay in marinka Islamqala ay si buuxda gacantooda ugu jirto oo iyagu ka arrimiyaan. Wararka ayaana sheegaya in dagaalyahanada Taliban ay qabsadeen 5 degmo oo ka tirsan Herat iyaga oo aan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada dowladda Afghanistan. Dowladda Ruushka ayaa qorsheynaysa in ay qabanqaabiso wadahadal dhexmara Taliban iyo dowladda Afghanistan waxaana ay martigelisay ergo Taliban ah ayaa sheegtay in kooxda ay hadda gacanta ku hayaan 3 meelood 2 meel suuhdinta ay la wadaagaan Tajikistan. Dowladda Ruushka ayaana ugu baaqday dhammaan dhinacyadu in ay isxakameeyaan. Muuqaallo la baahiyay ayaana muujinaya in ciidamada Taliban oo calanka Afghanistan ka qaadaya safka sare ee xafiiska kastamarka xadka wadanka Tajikistan iyo Afghanistan. Taliban ayaana si xawli ah dib ugula wareegaysa dhul badan oo Afghanistan ku yaala xilli Mareykanka uu ciidamadiisu kala baxayo dalkaasi. Saraakiisha Taliban ayaana sheegaya in dagaalyahanadooda ay la wareegeen 85% dhulka Afghanistan balse ma jiro cid ka madax bannaan oo sheegashadaasi xaqiijin karta. Qiyaasaha kale ayaa muujinaya in dhulka ay ka taliso Taliban uu yahay in ka badan 3 meelood meel ka mid ah 400 oo degmo oo uu dalka Afghanistan ka kooban yahay. Ciidamada Mareykanka ayaana toddobaadkii hore ka baxay saldhigga Bagram ee ah saldhigga muhiim u ahaa howlgalka Mareykanka ee dalka Afghanistan halkaas oo ay ka fulin jireen duqeymo dad rayid ay wax ka soo gaaraan. Magaalada Islamqala waa mid ka mid ah magaalooyinka udub-dhaxaadka u ah ganacsiga ee u dhaxeeya Afghanistan iyo Iran waxaana dakhliga bil walba ka soo xarooda lagu qiyaasay 20 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Intaas ayaan ku soo koobaya warbixinta ku saabsan ka bixitaanka Mareykanka iyo dib u qabsashada Taliban ee wadanka Afghanistan. Fadlan la soco barnaamijyadeena dambe. Mahadsanid.